Waxaa la yidhi hayaanka guushu maaha inaad qaadid raadka ay dadka badankiisu qaadeen, laakiin guusha dhabta ahi waa inaad u jihaysataa meesha ay dad badani ka jihaysteen. Dunidan waxaa kugula nool malaayiin qof. Waxay isugu jiraan culimo, dhakhaatiir, macallimiin, ganacsato, injineero iyo kuwa aan door muuqdaba ku lahayn nolosha. Laakiin adigu daawade, weli ma isweydiisay waxa kaa soocaya ama kaa gaar yeelaya malaayiinta qof ee kula midka ah? Se haddii lagu weydiiyo maanta qeexidda naftaada iyo waxaad ku soo biirisay dunida, maxay noqonaysaa jawaabtaadu? Ma waxaad ku jawaabaysaa waxaan ka qalin jabiyey jaamacad caafimaad, adigoo oo og inay hareerahaaga ka buuxaan kumanaan dhakhaatiira oo shahaadadaada la mida wata ama ka sarreysa? Mise waxaad dhihi waxaan ahay shaqaale karti leh oo shaqadiisa guul ka gaadhay? Haddii aad tahay, xitaa ma isweydiisay waxa kaa gaar yeelaya ama kaa soocaya saaxiibkaaga garabkaaga fadhiya isla xilligan aad daawanaysid muuqaalkan ee kula shaqada iyo martabadaba ah? Waxaa hubaala in noloshu inaga dhigtay kuwo isku wada dhaqan iyo isku nolol ah, qaadaya hal waddo oo cayiman, una jihaysan hal goob oo soocan. Haddaba si aad u noqoto mid ka soocan kumanaankaas, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad qaadid waddadaada kuu gaarka ah, wadda aad tahay keligaa. Intii aad ku jiri lahayd saf ay kugula jiraan kumanaan ama malaayiin qabanaya waxaad qabanayso, si aad taa u gaadhidna waxaad u baahan tahay oo keliya inaad maqasho sheekada laba qof ama hal qof oo ku dhiiraday inay maraan waddadooda u gaarka ah, gadaalna iska dhigay waddadii rootiiniga ahayd. Waana midda uu ku salaysan yahay muuqaalkeena maanta. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta, balse intaynaa muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Elon Musk waa hubaal marka aynu maqalno magacan inuu maankeena ku soo dhacayo shaqsigan hal abuurada lagu tiriyo adduunyada kuwooda ugu yaabka badan, heer loo bixiyey Iron Man, ninkii birta ahaa. Ka hadli mayno guulihiisii iyo noloshiisii, laakiin waxaynu ka hadlaynaa hal tallaabo oo uu qaaday Elon Musk bilowgii noloshiisii, taasi oo ka dhigtay midaan u dabranaan nolosha caadiga ee ay ku nool yihiin malaayiinta qof. Een ka soo hadalnay bilowgii muuqaalkeena, Elon Musk waxa uu yaraantiisii shahaadada darajada koowaad ka qaaday jaamacadda Pennsylvania, kulliyadda fiisigiska iyo dhaqaalaha. Kadib waxa uu jaamacadda Stanford ka bilaabay barnaamijka PhD-ga, laakiin 2 maalmood bilowgiisii barnaamijka waxa uu ka tegay jaamacaddii isagoo aaminsan inay jiraan waddooyin ka sahlan kana saameyn badan oo uu ku bedeli karo noloshiisa iyo tan dadka kaleba. Elon Musk waxa uu ka mid ahaa aasaasayaasha shirkadda PayPal, oo ah shirkadda ugu weyn adduunka ee la isku dhaafsado lacagta internetka. Sida oo kale waxa uu ka mid ahaa aasaasayaasha shirkadda Hyperloop ee samaysa gantaalada qaada dayax-gacmeedyada, isaga oo sameeyey gantaalkii ugu horreeyay adduunka ee awood u leh inuu ku soo noqdo goobtii laga ganay, mar labaadna dib loo adeegsan karo. Inankan South Afrikaanka ah waxaa hubaala haddii uu sii dhigan lahaa jaamacaddiisa inuu noqon lahaa aqoon-yahan yeesha baadhitaano, ugu badnaana macallin ka noqda jaamacadaha waaweyn. Laakiin waxa uu ka doorbiday inuu samaysto waddadiisa u gaarka ah, ugana taga adduunka saameyn fiican. Waa hubaal daawada inay jiraan kumanaan tusaale oo muujinaya dhalinyaro diiday inay ku noolaadaan nolosha rootiiniga ah ee ay ku nool yihiin dadka kale, go'aansadana inay yeeshaan noloshooda u gaarka ah, shaqadooda u gaarka ah iyo saameyntooda u gaarka ah si ay u xaqiijiyaan riyadooda u gaarka ah. Dadkaasi diiday inay qaadaan waddada ay qaadeen dadka kale badankiisu waa dadka keliyata ee ay taariikhda baalasheedu xusaan. Waa hubaal daawade haddii aad yeelatid go'aankeyga, sidoo kale aad ku dhiiratid ka dhabaynteeda, inaad adiguna daawada xaqiijinaysid waxyaaba aanay xaqiijin kuwa kaa hanti iyo nasiib badan. daawada waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka, muuqaalkana sii share garee. Wassalaamu calaykum.